waxaan rabaa marka hore in soo dhaweeyo oon aad uga mahad celiyo soo dhaweyntii reer Jubbaland shacab ilaa madaxweynahooda inta ka dhaxaysa naloo fidiyay runaantii waxa maanta sida naloo soo dhaweeyay oo qalbiga saliibka oo walaaltinimada oo dadka ka muuqata oo dadkii airport noogu yimid ka muuqda oo dadkii magaalada joogay ka muuqata oo suuqyada ka muuqata waa wax runtii qalbigeena taabtay kaliya oo waxana laga rabaa sida Jubbaland tahay inaan Soomaali ka dhigno uun baalna ka rabaa haddana halka ugu gudbo waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo yar aan ayadoo nuxurkeedii badnaa iga horeeyay inaan wax yar ka ilaahdo horta shirkan haddii qoys muxuu ahay xoogaa taladu ka wareerto oo odagu isugu yeeri waayo oo habartu isugu yeeri weyso oo ilmihii inay markaas kaligood iswacdaan dantu biddo horta dhib weyn baa meeshaas ka jira haddii muxuu ahay markay ilmuhu isu yimaadaan oo finally ay isu yimaadaanne habartii odaga xoogaa in welwel galo ayaduna waa mid meesha ku jirta laakiin waxaan idiin sheegaynaa ilmuhu caasi maaha wixii aan muxuu ahay waxaan rabnaa in reerku wanaagsanaado oo la tooso oo taladu fiicnaato wax alla wixii ilmuhu ay yiraahdaan aabaha iyo hooyada u keeni doonaan hadii Ilaahay habartii odagu in xoogaa dhiirsanaan muujiyaan qolka ilmuhu ku jiraan ay soo galaan war maxaa sheegaysaa yiraahdaan iska si fiicneed marka shirkan waa shir wanaagsan waa shir maxabo waa shir qoys waa shir tala xoogaa naga madmadoobaatay lagu saxaayo waa talo fagaare la keeni doono waxna haddii fagaare la keeni doono oo banaanka la soo dhigi doono wixii la isu sheegaa hubo waa inta gudaha lagu jiro marka inta gudaha lagu jiro oo aan anagu tashanayno oo ilmo iscanaanay naftooda ilmaha naftooda canaana u dhaxaysa war adiga asaas adaa xoolihii ku dheelay ayaa lislee inta ilmo iscanaanayaan hana laga warsugo haddii hadda intaan qolka ku jirana laga soo gaari karin hana laga soo gaaro laakiin banaanka keeni doona insha Allah ta'ala wax dibana male waxaan kalimad rabaa inaan ka iraado federaalka horta odayaashii iga horeeyay nuxurkiisa ka hadlay intaan habeen saan u jiifnay ayadoo nabad u jirto intaan soo toosnay federaal kuma riyoon federaalka dan ayaa nagu kaliftay dhibaato ayaa nagu kaliftay jajaba nagu kalifay kala aamin baxa nagu kaliftay 30 sano dhibaato socotay baa nagu kaliftay anigu wadankan aan muxuu intaas joogay waxaan u soo joogay muddo 4 bilood gudahooda xamar madaafiic lagu garaacay 30 kun oo qof inay ku dhimatay waxaan u soo joogay qofkii yaqaana baydhabo ilaa safar nooleys dadku gaajo iyagoo istaba socdo oo baydhabo loo soo socdo waxaan u soo joogay tayeeglow iyo ceel garas iyo muxuu ahay meelida burdho ayadoo dadku ay soo daba socdaan oo inagu kaliftay inaan biyo iyo raashin la kariyo ka horgeeyno anagoo beledweyne joogna federaalka dambaana biday dhibaato aan anagu isu geysanay baana biday ma aha wax aan ku raaxaysanayno oo lecture iyo damaashaad wax ku yimid maaha qofkii doonaya oo federaalka sabab kastaba ha ahaatee niyadda ka nacab waxa laga rabaa dhibaatooyinkii federaalka keenay in la xaliyo ka shaqee is-aaminaadii soo celi oo in la is-aamino soo celi talada in la qaybsado oo aysan wixii xamar ama meel kale ku aruurin soo celi annaga hadda caasimadda annaga ugu dhow iyo South West haddii talada iyo dakhliga iyo nabadda iyo barwaaqadu hadday xamar soo dhaafi waayaan hadda xamar jeclaan mayno
حمر واتقانين إيا بلعد وحي السجران وحن 40 كيلومتر دمين 4 ساعة لو صعدا أنه وحن جعلاله الخضار تكبح ذا الجوهر إيا مهداي إيا إلى بلعد إلى المحوة هاي حمر أسوق جينو يعني يلا السوق هذا جوهر أو حمر لحسا أسوق سعودي وحن لقى فائدة وقركرتان haddii la rabo in maxuu ahay dawladnimada iyo federaalka la jeclaado wixii dhibaatadan war aan kala joogno ayay dantu gaartay aan kala joogno wixii na gaarsiiyay aan xalino markaan xalino waxaan noo soo baxaysa inaan wax isku darsanaa inay ka fiican tahay inaan kala joogno waad ogsoontiin dadku waxa wanaagsan rajadooda waxay ka uga dadaal badan yihiin dhibaato ku soo socota inay iska badbaadiyaan dawladda barwaaqadeeda iyo muxuu ahay horumarkeeda iyo taladeeda wanaagsan waxa aan ka rajaynayno waxa horta ka horeeya dhibaato ka soo socota inaan ka badbaadino haddii muxuu ahay sida rag hadda qaarkood ay ka qaylinayaan dawladdii dhibaato laga cabsado oo wasiir federaal uu markuu noo soo dego aan warbalaayad muxuu wadaa oo aan barnaamij kala hadli weyno oo aan dakhli kala hadli weyno oo aan xildhibaanadii noo joogay oo namadkalay imaatinkooda aan sharaysano hadda federaalkii iyo dawladnimada jeclaamayno sida daraadeed federaalka dambaana biday haddii inaan ka baxnaba ay tahay oo dad saas jeclaaday ee horta ciladihii keenay aan xalino koow midda labaad haddii xataa aan ka baxayno markii horeba talo علايس وهذا هذا جبوتي عرته كمبالا انت اللي مري وانبغاتي واكسنتين انت يو كلي يسنو قادننا انتان سددنما اسوق نمادو ان اسدهنا ور فدرالنما انفع حقيه كلو ادنا لكن ان المحوها اسمر ددبينو او اد محوها هاي هوس اسك جيجيدنو او ان اسكراعنو او ان كلا شكلنو دنو maaha federaalkii markaan qaadanay waxaan samaysanay dastuur kii weydaan waan samaysanay kii dawladahana waan samaysanay anigaan idila hadlaayo hadda madaxweynayaashan sharafta badan ag fadhiya bil ka hor nin shicib oo caadi ayaan ahay waxaan halkaan ku fadhiyaa oo halkaan ku imid mas'uuliyad la soo saaray iyo ballanan qaaday oo kutub la geliyo leeyahay in dastuurkaas wuxuu qoraa ma raacsan tahay ha ku dhaaro anigu kulay nimaan ahay wixii dastuurkaas ku qoran waxaan ahayn waa ila waaba dhaartay kutaab weligay muxuu 55 sano jira ma dhaaran gar iyo gardar wixii aan ku dhaartay oo dhaar la igu geliyay waxaan uga bixi karaa iyadoo inta tala kale liimaadile war dhaartay waa ka baxday habalkana hadana saana yeelina laakiin anoo wixii aan ku dhaartay ee yeelin wax kala diyaar u yahay inaan ka shaqeeyo madaxweynayaasha kalena waxaan u malaynayaa waa ila mid dastuurkaas aan qoranay dadka siyaasiyiinta waa yaqaaniin waxa la yiraahdo social contract waa aqdigii u dhaxeeyay dadka la xukumo iyo dadka wax xukuma ninka iyo naagtu aqdu nikaax isku qabaan Soomaa annaguna waxaan madax ku nahay aqdi aan dadkeena la galnay aqdigaas kama bixi karno meel kama aadi karno haddii inaan aqdigaas ka baxno tala la moodo meel fagaara oo la wada joogo aqdigii hana loo ka saaro aqdi kale hadana laga saxeeyo walaalayaal mas'uuliyadda nasaaran sida madaxweyne Axmed oo hadalka ku bilaabay intaan wadanka wixii ka haray way yar yihiinba taladii meeshan ka soo baxda dawladana waa u geyneynaa shucuubta aan metelna iyo deegaanadii aan metelna waa horgeyneynaa waxaan hubnaa wax dhibaato inaysan ahayn waxaasan keenay oo tala kale ku celino haddana aan inaan ku shaqeyno aan isu ogolaadno laakiin haddii waxna aan sheegno wax kale oo ka duwan aan ku dhaqanno hadda saasan iskaga daba wareegayna waxana loo qaatay waxa muxuu ahay hadda tuunka jira iyo nin walba tuunka ku jira intuu sheego fagaarahan iyo madashaan baysan ahaanin haday doonto laakiin qof walba wixii ku jira waa inuu sheego waa in laga qanciyo
وإلا شافيه dadka wax doortay waxay xaq u leeyihiin madaxdooda balantay la galeen oo ku dhaariyeen inay ku hogaamiyaan madaxdana wax xaq loogu leeyahay hadii jidkaas ay dhibaato kala kulmaan ama shakhsiyan u dhibsadaan ama wadar u dhibsadaan inay dadkoodii kula soo noqdaan oo ay yiraahdaan halkaasaan idin wadnaa waxaan rabnaa arrimaha masiiriga oo saameyn kula mustaqbalkeena oo saameyn kula mustaqbalka ilmaheena in lagala tashado oo nalagu soo celiyo waxaad ka warqabtiin hadda waxaa socda shir la yiri dastuuri oo dastuurka ayaa looga wada hadlayaa dadkay quseysay maanta halkaanay wada fadhiyaan dastuurkaas iyo processkaas socda haddaana nalagu soo celin oo aysan gacanteena soo gelin ciddii ku tashatay iyo ciddii saxiixday u taallaa fulinteeda waxaa la wadaa barnaamij amniga looga shaqeynayo oo waddankan amnigiisa looga tashanayo haddaana nalagu soo celin oo aanan amnigaas sida deegaanada aan joogno u roon iyo annaga dhexdeena noo roon haddaanan taladaas nalagu soo celin oo barnaamij amni waddankaa loo sameeyo haddana ciddii u samaysaa laga rabaa inay fuliso walaalayaal raalli ahaada madaxda sharafta leh warku waa idinku badiyay waxaan ku soo gabagabeynayaa mas'uuliyiinta sideedaba waxa laga rabaa inay maamulaan professor gaas waa yaqaan waa dhaqaalayahan scarcity waqtigu waa yar yahay dakhligu waa yar yahay hantidu waa yar tahay wax walba waa yar yihiin waxaasana laga rabaa muxuu ahay war dakhligii maxaa noo muhiim ah waqtigii maxaa noo muhiim ah taladii maxaa noo muhiim ah waxa noo muhiima haddaanan hore isaga warsan aan hadda iska warsanno haddii aan iska warsanno meel noo taalne anigu hadda ragga waa ugu dambeeyay wixii meel noo yiilo ballantayd waydala qabaa ayadii aan fulino waxaan mar labaad aan aad uga mahad celinayaa madaxda sharafta leh madaxweyne Axmed Madoobe shicibka Jubbaland wanaaga iyo sharafta iyo dadnimada halkaan ka muuqata annagu hadda waxaan halkaan u joognaa inaan waxyaalo fara badan aan intaas nood aan qaadanayna nood waxyaalo badan nood waa ka qaadanay ilaahay ha noo fududeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh